السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaan nagala socotaani waa Taya Building Construction and Design. qofka idin la hadlayana waa aniga Axmed Xasan. ku soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub. muuqaalkina maanta waxaan ku eegi doonaa waa Archicad cashirkeennii labaad. cashirkii hore waxa uu iska ahaa iska introduction. marka insha Allah cashirkana waxaan noqon doonaa keenii labaad. marka insha Allah waxaan isku day doonaa inaan design gareyno guri ka kooban ilaa 5 qol. okay sorry marka hore waxaan tegaynaa option, kadib waxaan tegaynaa project preference, work unit, then unitada ayaan soo hagaajinaynaa. marka unitkan ku isticmaalayo waxaan waa meter baan ka dhigan, xagana meter baan ka dhigan, then decimalkana 2, xagana 2, then okay. hadana option baan ku noqon project preference, dimension kana waxaan ka dhigan isla meter uu yahay, then decimalkana 2. okay kadib waxaan tegaynaa wall, hadana waxaan tegaynaa taas saddexaad ay ku qoran tahay structure basic composite complex profile ayaan ku dhufanaynaa, then thickness of the wall waxaan ka dhigaynaa 0.20. okay xagana waxaan ka dhigaynaa not linked, height of the wall 3 meter, then okay baan odhanaa marka. okay wall keeni ayaan dhisaynaa. okay outside has ka dhig. okay for example xagan waxaan u baxaynaa 7 meter, xagan waxaan u baxaynaa 2.5 meter. okay xagan waxaan u baxaynaa 4 meter, xagan waxaan u baxaynaa for example 9 meter, sorry 9 meter. okay xagana 4 meter, okay xagana 3 meter, okay xagana 5 meter. okay xagana waxaan u baxaynaa 4 meter, okay xagana waxaan u baxaynaa 4, xagana 4. okay xagana waxaan ka dhigaynaa up to ilaa 5 meter because of intaas gudaha. okay waan isku soo xidhaynaa. okay xagana waxaan soo baxaynaa 5 meter, then xagana 7 meter. okay waan isku xidhaynaa marka. okay waan isku xidhaynaa marka. okay qolalkana ayagana waan isku wada xidhaynaa. xagaas waxaan ka sameynaynaa 2 qol xagana iyo kan oo fadhiya, marka 5taas qol baan ka dhigaynaa marka. okay xagana aan isku xidhno. okay line-ka markuu saas kala yar qalqalcsamo shift baa la qabsadaa, isaga noqon line toos, then xagaas ku keen xidh, hadana xagan ilaa xagaas. okay qolkan waa qolkii fadhiga, xagana 2 qol, kan oo 3 iyo 4 iyo 5. okay midpointigu waa xagaas, xagana labaan u kala qaybin marka. sorry oo qalacsamay. okay wakaas hadaan 3D soo eegno kadibna orbit, then saasuu noqday hadda waxaan sameynay. okay okay xagaas ayaan hagaajinaa. xagaag dib baan u celinaa. okay hadda wallkii baan sameynay, kadib 3D gaan tagno aan soo eegno. okay
sidaas uu noo noqday. Marka xaggaas ayaa labadii wall ayaa muuqda kaa iyo kan. Marka xaggaas ayaan hagaajinaynaa. Okay, inta yar baan select gareynaynaa. kadib nodkaas aan tegaynaa, dib baan u riixaynaa, waa la simeynaa. Okay, hadda waa kaas waa caadi. Okay, hadda waxaan sameynay gidaaradii. Okay, waxaan sameynaynaa slabki. Okay, slab kadib boxkan koobaad baan imanaynaa. thickness of the slab tusaale waxaan ka dhigaynaa 0.45 then dhulka imsaan ka qaadnaa ever. Okay, model iyo gebide wax kuwan waxa weeyaan waa kalareyntii guriga, waa rinjigii la marinayo. Marka kuwan markaan dhameyno la marinayo naga xidhnaadaan kadib okay baan galnaa. Okay, xaggan ka bilaabinaa tusaale ahaan waan ku wareejinaa marka guriga edge to edge. Okay, xaggan haddana okay, sorry, xaggan okay aan ku wada wareejinaynaa guriga dhammaantiisa. Okay, hadda islaabkii waanu sameynay. intaa yaree barandaha ayaa bilaa islaab. intaana waxaan sameynaa waan soo jiidaynaa islaabkeenan, waan select garaynaa, kadib xaggaasaan tegaynaa, kadib waxaan taabanaa calaamadaas ay ku qoran tahay offset edge ilaa xaggaasaan soo jiidaynaa. marka intan kalena waan soo jiidaynaa. waxaan sameynaynaa kan baan soo jiidi karnaa, dhinacana aan ka jiidinaa. Okay, ilaa xaggaasaan gaadhsiinaynaa. Okay, kadibna intanaan jiidinaa. Okay, halkaas islaabkeenina waan sameyn. Okay, maanta cashirkeenu intaas ayuu noogu joogay. cashirka ku xiga ayaan ku sameyn doonaa insha Allah albaabadii, daaqadihii, roofkii iyo dhammaantii guriga wixii ka dhinaa dhan. haddii ay tahay markii ugu horreysay aad channelka soo booqato, fadlan subscribe saar, sidoo kale muuqaalka like saar si uu u gaadho dad tiro badan. sii share gare oo la wadaaga saxaabtaada. haddaad tahay qof horey noola sii joogina waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga. wixii talo iyo tusaale aad noo haysana waxaad noogu reebi kartaa qaybta commentiska, sababtoo ah waxay noo tahay dhiirigelin. aad iyo aad baad mahadsantihiin.